ciidamada deegaanka ee Macawisleyda ayaa weerar cagmarin ah waxay ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa tuulada Baraakshi Caamir oo hoos tagta deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud. ciidamadan ayaa la sheegay inay ka wareereen Al-Shabaab halkaas isku urursanaya isla markaana ay ku qaadeen weerarkan. waxaa la soo warinayaa inuu jira khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana dagaalamayaasha Al-Shabaab ee la weeraray halkaas ku sugnaa hogaaminayay horjooga lagu magacaabo Daahir Calasow kaas oo dadka degan kaas oo dadka deegaanka dhibay. ciidamada deegaanka ayaa markii dambe garab ka helay ciidamada dawladda ayaana la sheegay inay cagta mariyeen dagaalamayaashii Al-Shabaab ee isku urursanaya Baraakshi Caamir isla markaana halkaas ay uga soo furteen hub gaaraya 4 AK iyo qasnadahooda isla markaana halkaas ay ku dileen 4 dagaalamo oo la socda Daahir Calasow baabuurna halkaas uga gubeen. Al-Shabaabkii isku urursanaya Baraakshi Caamir ayaa la tilmaamay inay iskaga baxsadeen halkaasi isla markaana ay ka carareen ciidamada deegaanka ee markii hore weerarka ku qaaday. Daahir Calasow waxa uu hore jidgallo u geystay ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ku sugnaa aagga degmada Runurgood ee gobolka Shabeellada Dhexe, isagoo halkaas arbushaad fara badan ka sameeyay. ciidamada deegaanka ee ka wareelay inay ku sugan yihiin Al-Shabaabka Baraakshi Caamir ayaa la sheegay inay hujuumeen isla markaana dagaal culus ay kala hortageen Al-Shabaabkii halkaas isku urursanayay. warar aan la xaqiijin waxay sidoo kale sheegayaan in horjooga Daahir Calasow uu weerarkaasi ku dhaawacmay isla markaana Al-Shabaab dhaawiciisa ay qaateen. ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadeen deegaan iyo degmooyin dhaca bariga gobolka Galgaduud iyo xadka gobolada Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud, iyagoo oo doonaya inay Al-Shabaabka halkaasi ku dhumaaleysanaya ay ka saaraan. Al-Shabaab ayaa wajahaya culays kaga imaanaya ciidamada deegaanka kuwaas oo u dulqaadan waayay Al-Shabaabka ku sugan deegaanadooda isla markaana dadka dhibaateynaya. wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee dawladdu ku dhawaaqday ayaa la filayaa inuu bilowdo iyadoo ciidamada safka hore ee dawladaha saaxiibada la Soomaaliya ay ka qaybgeli doonaan dagaalka wejiga labaad isla markaana ciidamadii ka qaybgeli lahaa meelaha qaarkood ba la sii geeyay. Al-Shabaab ayaa hadda ku soo urura kaliya inay weerar ka geystaan saldhigyada ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanadii laga saaray, waxayna dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay wado qorshe ka dhan ah weeraradaasi arbushaada ay Al-Shabaab ay ku soo qaadaan saldhigyada ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanadii Al-Shabaab ay ka saareen. ilaa iyo hadda dawladda Soomaaliya kama aysan hadlin weerarka Baraakshi Caamir ay ku qaadeen ciidamada deegaanka oo markii dambe la sheegay inay garab ka heleen ciidamada dawladda, waxayna ciidamada deegaanka ee Macawisleyda ay ku dhiiranayaan inay Al-Shabaab ka soo furtaan hubkooda si aysan ugu gumaadin dadka shacabka ah ee deegaanada ay ka hariminayeen laga saaray.